السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان أقول صعبتها كينج LB فيديوز أند فلوكس كسر هذا برنامج كان عاون ده إنه برنامج يسكر له وحنا برنامج كي عاون ومرتاح بسرعان له وما فوق إنه يمد مكا حليه مركو ورسول كسر هذا برنامج كان ونقضنا برنامج هذا في سبضان كوب كشاح سوق هذا أكتسول جو شراب كذا سول ويسوي كفوانين هذيك كل شيء كذا يقول لنا نطلع marka barnaamijkayga caawana wuxuu daaran yahay qiso aad u cajiiba oo qurux badan oo walaalkayga ayaan uu soo tabinayo oo qiso dhab ah oo isaga shakhsiyadiisa maaragtay uu nooga sheekayn doono marka mise ayaan le ayaa caawa barnaamijkan marti noogu ah mise ayaan le soo dhawo mise ayaan le barnaamijkan caawa martida noogu tahay waa barnaamijka taariikhiga ah وليه برامج كانوا إحنا نقدونا برامج الحلقة أيام ولا القصة برامج وعندي ما يولد marka ugu horeyso waxaan jeclaan lahaa dadweynaha ayaan la inaas kaga dhex baxo ayana bal shacbiyada LB Kings isbarbal barasho wanaagsan asxaabta LB Kings aad baa idin salaamaya dhamaantiin caawa ana idin martiya marka hore maasha Allah walaalkii way soo dhigay maadaad meel fog noo leeyahay adduunka ku rooyay odayga waxa ku dhacay markaan soo horeysana kasooyin yar oo mutaqaanaa aniga dhinacaygana waan istaafsanaa insha Allah tii lahayd mo saas oo la soconsa markaa dawadayaal runtii qisadan waa qiso cajiib ah oo jacayl ah jacaylada rag uu hayo dhan waxa la yahay soo dhawaada qisadan waa qiso maaragtay wada taabanayso runtii qisadan markii uu iga sheekeeyay runtii aad bay taabatay marka sida darteed waxaan jeclaan lahaa inaad maaragtay qisadan waxaad nagu dhageysataan ku darso weliba qisadani waa qiso dhab ah oo shakhsiyadiisa ah waxayna leedahay suugaan u gaar xitaa uu ka sameeyay maaragtay walaalkan ayaan leh marka sida darteed waxaan leeyahay soo dhawaada ayaan haddaba aan adiga iyo dadweynaha idin kala baxo si aad maaragtay uga sheekaysid qisada quruxda badneed ee horaanba maaragtay trailkeeda aad hore iga sheekaysay marka ayagii daawayaashaan idin kala baxaya horta waa si wanaagsan liban waxaa jirtay magaranaysaa qisadan mataqaanaayay mid yaro kooban baad moogtay gebigeygu waxaad mataqaanaayay saacado waa gartay waxaa jirtay mataqaanaa ilaa 2015 bilowgiisii maraan kasoo baxayna talyaaniga ayaa waxa dhacday inagoo baskii talyaaniga soo raacayna aan ka barshaqo xaribna meesha kabacdi raggu gaar buu fadhiisanaya dumarkuna gaar buu fadhiisanaya markaa qaybta dumarku ay fadhiisanaya gebigeedu waa buuxday gabadh baa mataqaanaa ay soo gashay oo dadka ugu dambeysay meel ay fadhiistaa may jirin waxay uta xaggaa maa fadhiisan karaa hawlaa soo dhowo gabadhii halkii baa fadhiistay kabacdi marka baska soo raacaysid haddii aan ka dhex galo cafa na dhegeysanaya ama na daawanaya qisadaada balbarbal qisadaada qiso noocay ahayd halkay ka dhacday iyay ku dhacday suugaan caynkii aad ka samaysay bal isku day marka hore bal inaan si qisada tixraaceeda hore dadka ay u sigeystaan horta qisadeeda waxaan ugu magac daray mataqaanaa rucubo qisada magaceeda waxaa la rucubo baa la dhahdaa waxay ka dhacday mataqaanaa talyaaniga markaa safar bas waxaa jira mataqaanaa dadku markay safarka soo galayaan mataqaanaa Jarmal loo soo baxay qaybtii aad fadhisay ayaa si ixtiraam leh gabadha walaashan ahayd oo baska dhinac ka saaran maadaama dhankii dumarku u badnaayeen ay buuxsanayd halkaagii fadhiga ugu baneeyay markaad u baneynaysa baska ma inantaa ku yar caajibisay oo dareen waxbaa jira mase si dara ilaahay baad ugu baneynaysa macnaha haddaan kaa dhex galo horta waxaa jirta magaranaysaa libano baska mataqaanaa 2 nafar weeyaan kursiga la fadhiistaa waa saxa waa 2 qayb ahaan nafarkan aniga xaggan iyo xagga daaqada iyo xigay waliba ayaa asalkiisa waa banaanaa mafahant okay yani gabadha booskii uma baneenin laakiin booskii wixii ay soo fadhiisatay waa gartaa sax kabacdi halkii baan gabadhii magaceedii baan isdhaafsanay aduu 2 qof oo Soomaaliya aan magaalada waxa isku fahmi waaya ma jiro gabadhii baan wax kulan wada hadalnay sheekeer baan dhex martay muddo saacada markii mataqaanaa train aan saarnay mataqaanaa baskii muddo saacada markaan baskii saarnay ayaa waxa dhacday gabadhii adigu
in muddo ah markaan wada hadalnay sheekadeedu socotay yani xaafadaha dhammaan wuxuu dhan mataqaanaa iska wada warwareysan sawirkeedi intaan iyadoo gacanteeda ku haysa magaraas intaan kasoo qaaday ayaan kaygiisiiyey ayaan isdhaafsanay waxaan soo galnay kabacdi magaalada mooshin baan soo galnay mooshin markaan soo galnay waa dareemi kartaa dee qof mataqaanaa meeshii ku cusub cid aan ka garanaya aan la jirin gabadhii halkii baan ku kala baadiinay bartii baan ku kala lumay wax xiriiroo dambena mataqaanaa maalinkiisina dib isku maakin ma halkii baa isugu dambeysay markii aad soo gashaan dalka Jarmalka magaalada München bas kamaraan ka dignay waxaan filayaa in gabadhaasina daawanayso ay ku nooshahay waddankan Jarmalka lafteeda waxaan filayaa haddii xaggeeda uu dareen jiro dadkeeda sidoo kale ay ku sugaysaa laga yaabaa marka haddii aan daawanayso waxa weeye ayaa la dhinac ugu fadhiyaa weli kuma hilmaamin qisadan rucubana adigu iyu ka sameeyay okay markaan barnaamijka dib ugu soo laabtay Mr. Ayaale waxaad iga sheekaysay dareenkaasi inuu ahaa dareen si kaliisa kugu soo galay oo ilaa hadda qalbigaaga ka dhamaanin waxaad leedahay hadda go-aan oo ah waxaad qaadatay inaad sugtid inta qisadaasi rucuba ay ka hirgelayso mase waxaad leedahay yeelkeeda mustaqbal kale iyo nolol kale waxbaan iska samaysanay hadda horta waxaa kasoo wareegtay muddo 5 sano ama maanta 5 sanadood horta waa gartay allah waa caalamtay maanta ma gabadhii meel ay ku sugan tahay garanaysid laga yaabaa xataa maanta hadday iga soo baxda garanaysaa inaa wajigeeda aqoonsan waa sax waa isbedeli kartaa marka taas iyadu way tagtay muhiimada keliya waxay ahayd qisadii intii mataqaanaa gabadha aan kulanay wixii mataqaanaa ani qalbigayga kasoo qoraal ahaan ka sameeyey inaa mataqaanaa shacabka runaantii ayaan kaaga mahad celinayna maadaama qisada quruxda badan leh aad nala wadaagtay iyo dareenka wanaagsan qisada rucuba runaantii aniga aad bay cajabisay maadaama ay ahayd qiso safar ah oo dareen qofka sida dabeesha ku beday oo ku taabanaya qalbigaagana aan weli ka gooyin oo aad jeceshahay inaad shacabka la wadaagtid qisada waxaad ii sheegtay inaad ka samaysay suugaan qisadoo dhanba waxaa ugu qaalisan suugaanta laga sameeyey dareenkaaga suugaanta mala wadaagi kartaa shacabka si wanaagsan horta waxaa ku weli mataqaanaa wax jirta mataqaanaa waxyaabo qofka biniaadanki markaa oo fikra ma garanaysa maskaxdiisu ay ku dhaqaaqaan waa sax suugaantan waxaan ku sameeyey waxay ahayd qoftii saacadaha aad mataqaanaa kulanteen ee mataqaanaa xiriir idin dhex maray kabacdina aad kala lunteen haddee waqtigii waayey mataqaanaa idin kala weeciyeen ayaa fikirka kugu dhimanaysa mataqaanaa inaad suugaan ka samayso codgeed ku taaliyo rays yaro roobale nimcad urushayso riixaan udgoono ruuxii yarkahayba ramsi wixiiso daayaha la raaco u riyaaqa eegmada aniguna rafiiqay rasmi ayagaan sugay runtii adiga weeye rajadeena ila dhow dhifka raysu baadloo dheef lagaga raystaa ragga loogu faanaa rafiiqiyaa doortay had madar hadi noqono raasamaalka dunidiyo reer lagu nagaado ku raaxaysan doonaa sugaanta iyadaaba taas waxbaa ka dhacay run ahaantii sugaantaasi waa sugaan qaali ah weliba waxaan umaleynaya inay ka fahaysan doonaan awaanada na maqlayo in maaragtay sugaantaasi miraha dhaxalgalka ah ay maarata qaadan doonaan qofkaasina haddii uu daawanayo gabadha qisada ruuba ay ku socoto waxaan jeclahay in dadkeedu ay ku qanci doonto daawadayaal taniya intaan barnaamij lamida dib ugu kulmi doono barnaamijka iga caawa taxanaha noo soo ahaa intaa ayaanu kusoo gabagabeynaynaa taniya intaan todobaadka dambe dib u kulmi doono waxaan idin leenahay aad ayaad mahadsantihiin daawashadiina inta aanan ka bixin waxaan leeyahay maxaa jeclaan aan kaaya dhexgeli mano mid kale suugaanta magaraysa laftirkeeda mataqaanaa hees way noqon kartaa mugtiin waad gaaxatay mugtaa marba soo maaragtay markaas heestaas iyada ah habeen hore baa mataqaanaa aan nin finaan wada hadalnay okay ninkaan odayga insha allah ayaa heesta iyadana soo wada qaadi doona ma abwaanba mase waa fanaan ninkaan fanaanka baa heesta qaadi doona fanaan eriyada magaraysa aniga fanaanka udhiib okay waaba hees soo socota fanaan baad u dhiibtay okay oo fanaankaasi ma dalkan jarmalku ku nool yahay mase wadamada kale jooga wuxuu ku nool yahay Nairobi kii jooga okay fanaan adiguna heestaasi waynu kaa sugaynaa daawadayaal aad ugu mahadsantihiin barnaamijkayga taxanaha noo soo haya caawa dhan aad nala socoteen
marka tani intaan barnaamijkan barnaamij lamida toddobaadka dambe dib ugu kulmi doono waxaan idin leenahay nabaadiino iyo nooli kunte aad ayaad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullah. Tschüss.